السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada aqoon doon channel waxaan wada adeegsanaa aalada Facebook waxaan u adeegsanaa inaan dad kula xiriirno inaan sawiro dhigno ama qoraalo dhigno sidoo kale waxaan u adeegsanaa inaan reaction ka bixino ama comment ka bixino sawirada ay soo post garayaan ama ay soo dhigaan asxaabteena balse waxa aad u adag hadii lagu dhaho soo saar sawir aad ka bixisay comment ama reaction muddo ka hor balse aalada Facebook waxa ay ku fududeynaysaa inaad soo saari karayso sawir aad ka bixisay comment ama reaction xitaa hadii ay ka soo wareegatay dhowr sano muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa qaabka ugu sahlan ee aad u soo saari karayso sawir aad ka bixisay comment ama reaction xitaa hadii ay ka soo wareegatay dhowr sano balse waxa xusid mudan hadii uu ku soo gaaro muuqaalkan inaad like saarto share dhahdo si aad u gaarsiiso asxaabta kale haddaad nagu cusub tahayna fadlan channelka subscribe leh oo taabo gambaleelka si aad ooga mid noqoto bahda ku xiran channelka aqoon doon daawasho wacan ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa aalada Facebook kadibna waxaan tegaynaa qaybta profile-ka waxaan ka dooranaynaa calaamadda saddexda dhibic ee u taagan menu-ga waxaan ka sii dooranaynaa activity log markaan soo galno waxyaabaha aan ku arki doono waxa kamid ah sawirada aan commentiga ka bixinay reactionska pageska aan like ta saarnay iyo qof walbo aan la noqonin new friend waxaan kaloo ka arki doonaa cid walbo na soo mention gareysay ugu horeyn waxaan u baahannahay inaan kala xulano like ta iyo reactionska si aan u kala xulano waxaan tagaynaa filters kadibna waxaan ka dooranaynaa categories waxaan imaanaynaa meesha ay ku qoran tahay interactionska si aan u kala doorano commentska iyo reactionska waxaad ku dhufanaysaa interactions haddaa u baahan tahay inay dhammaantood kuu soo baxaan waxaad dooranaysaa all haddaa u baahan tahay inaad commentiga kala hesho waxaad ku dhufataa comments sida inoo muuqata waxaan aragnaa kaliya commentska aan ka bixinay sawirada ama pageska haddaa u baahan tahay commentiga inaad ka noqoto waxaad taabataa calaamadda saddexda dhibic kadibna waxaad tiraahdaa delete waxaan dib ugu noqonaynaa filters si aan u kala xulano reactionska iyo commentska waxaad ku dhufataa category kadib waxaad imaataa halka ay ku qoran tahay interactions waxaad tiraahdaa kaliya likes and reactions waxaa inoo soo bixi doona sawirada aan like ta saarnay iyo reactionska sida love-ka iyo wow-ga reactionka u baahan tahay inaad ka noqoto waxaad taabataa calaamadda saddexda dhibic kadibna waxaad tiraahdaa remove reaction waxaan aad u rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iideen kana hesheen muuqaalkan intaan ku kulmi doonno muuqaalka xiiso badan waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh